marka xilliga ka dhacay reer ma lahayn kadib ay nin guursatay ninkiina umayna sheegin arrintaa inay dhacday waxay leedahay ma dembi baa haddii aan ninkayga ka qariyo waxaan leenahay jawaabtu asalku waa maya laakiin mar bayna bannaanayn asalku qofku du dembi ka dhaco inuu is asturo wey haddii qofii ogaadana satrul muslim waaye qofka muslimka ceebtiisa in la qariyo wey isaguna ilaahay u toobad keeno ilaahay u toobad keenna ciddii ogaatay ay tiraahdo waxba ninkay guursanayso kama duwana nin khalad ka soo dhaco qof dumara guursanaya inuuna ku qasban inuu sheego inuu is asturo loo baahan yahay bini'aadamku waa khaldamaa toobada ilaahay abwaabtiisuna waa waasac ilaahay iyo aadam waxay ku kala duwan yihiin khaladkaad ka gasho aadamuu khaladkaa ka gashaay inaad u sheegto isfadeexayso lagu ogaada wey ilaahay laakiin khaladkii aad ka gasho keligaabaa u toobadkeenaya oo baryi ceebtaadina way ku asturaan saa darteed gabadhaasi ninka inay u